wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland ayaa kormeer ku sameysay xafiiska ay ku shaqeeyaan xiriirka kubadda cagta Jubbaland oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada Kismaayo. Agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa waxqabadkooda ka dhageystay xubnaha xiriirka kubadda cagta Jubbaland. dhawaan ayay ahayd markii ay fureen tartanka ay u qabteen kooxaha ka dhisan degmada Kismaayo. xiriirka kubadda cagta Jubbaland Aadan Cabdi Faarax ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland uga warbixiyay waxqabadka xiriirka kubadda cagta Jubbaland. maanta waxaan noo soo booqday wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha uu hogaaminayo Masar Cabdiraxmaan Xaaji oo isagu ahaa nin aad iyo aad dhan walba ka hormariya sportiska maadaama aanu nahay anaga min footballka warshadii dhalinta da'yar soo saarayso sida darteed maanta waxay noo soo digashay marka inuu agaasimaha uu soo booqdo isagoo ka dhabeeyay booqashadiisu uu ku gaarayo xiriirada ka dhisan Jubbaland. farxad bay inoo tahay xiriirka min footballka iyo wasaaradaba waana horumar uu isagu uu sabab u ahaa inuu aasmo xafiiskani. waxaan rajaynaynaa insha Allah xafiisyada dhiman hal xafiis weey Olimbikada sidoo u shaqeeyay kan oo kale inuu Olimbikadana ay sameeyso xafiis. inta kadib agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa ka hadlay waxaana ku dhiirigeliyay inay sii wadaan horumarinta ciyaaraha kubadda cagta. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta kormeer ku imaano xafiiska Mini Football Association Jubbaland. waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa maamulka iyo sida qurxoon ay noogu soo dhaweeyeen aniga iyo wafdigii igala socday wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland. waxaa xaqiiq ah kormeerkan inaan maanta u daba socday shirkii ka dhacay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland labadii isbuuc oo la soo dhaafay. aan isugu yeernay dhammaan laamaha isboortiga inta ay u kala baxaan mini football xiriir kubadda cagta iyo qaybta Olympiga. shirkaas oo looga gol lahaa in la isku cafiyo khilaafaadkii iyo shakigii ka dhex jiray qaybaha isboortigana in lagu xalliyo si aan u gaarno himilooyinka waaweyn ee isboortiga taas oo ah in la helo ummad midaysan horumar ku dhiiran iyo dawladnimo. waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa fursadan mini football sidii ay u qaateen sharcigii wasaaradda ay u soo jeedisay. waxaad ogtihiin saddexdii isbuuc oo la soo dhaafay dardargelin iyo dadaalada wadeen wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo lagu horumarinayo isboortiga qaybihiisa kala duwan. dabagalna lagu sameynayo cid walba oo isboortiga ama maamul ah inaan dabagalno xafiisyada ay ku shaqeeyaan taasoo ka turjumaysa in ay jirto dawladnimo dhab ah. wasaaradduna ay la imaatay qorshe cad inaanay diyaar u ahayn inaanay la shaqeynin cid suuqa wareegta xafiisyo ay ku shaqeeyaan aanaysan lahayn. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland ayaa dhawaan furtay horyaalka kooxaha kubadda cagta Jubbaland waxaana ay wadaa horumar ballaaran oo ka dhana guud ahaan noocyada kala duwan ee ciyaaraha. Cabdi Cabdullaahi Labaqay, Jubbaland TV, Kismaayo.